kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka galka wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo ku baaqday in la xoojiyo cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya. diyaarad rakaab siday oo ku burburtay dalka Tansaaniya. dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo waliba ciidanka macawisleyda ee gobolka Hiiraan oo guulo la taaban kara ka gaaray dagaal maanta ka dhacay isla gobolka Hiiraan. qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku dhageysan doontaan warka galka wararka. fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay channelka noo subscribe garee, barnaamijkana like noo saar si uu dad badan u gaaro. mahadsanid. aan ku bilownay guddiga khuburada ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha la xiriira la socodka hubka sharci darrada ee Soomaaliya ayaa kula taliyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la ballaariyo shuruudaha liiska cunaqabataynta saaran Soomaaliya. warbixintii ugu dambeysay ee guddiga ay soo saareen bishii Sebtembar ee ina dhaaftay iyo October ayay ku sheegeen in tallaabooyin muhiim ah ay u yihiin in wax ka qabashada qorsheynta iyo jihaynta taageerada kooxaha xagjirinta iyo waliba go'doominta dhaqaale ee magaalooyinka ay ka haystaan Soomaaliya. warbixinta ay soo saareen guddiga waxa ay ku soo aadaysaa xilli dowladda Soomaaliya ay haatan dagaal kula jirto Al-Shabaab iyadoo dhawaan midowga Afrika ay ka codsatay in laga qaado cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay adag tahay in si toos ah looga guuleysto Al-Shabaab iyadoo Soomaaliya ay cunaqabataynta hubka ay saaran tahay iyadoo ciidamada dowladuna aysan helin hub casri ah oo ay kula dagaalamaan kooxaha xagjirka. dhawaan Mareykanka ayaa sidoo kale soo rogay cunaqabatayn ka dhan ah Daacishta Soomaaliya. Mareykanka ayaa cunaqabataynta dul saaray xubno ka tirsan Daacish iyo kuwo kale oo lagu eedeeyay in ay ku lug leeyihiin shabakadaha hubka ka iibiya Shabaab iyo Daacish. wasaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgal qorsheysan oo ciidanka gaarka ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay ka fuliyeen deegaanka galka Saalimow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay 21 ka tirsan Al-Shabaab 10 kalena lagu dhaawacay. wasaaradda ayaa sheegtay in xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee lagu dilay ay ku howlanaayeen falal la doonayay in ay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed isla markaana howlgalka uu ahaa bartilmaameed lagu bartilmaameedsanayay kooxdaasi qorsheynaysay falal lid ku ah arrimaha ammaanka laguna burburiyay farsamooyinkoodii iyo waliba wixii ay qorsheynayeen. jabka gaaray Shabaab ayaa ka dhigan in 4 maalmood gudahood ciidanka qaranka ay ku dileen ku dhawaad 200 oo ka tirsan Al-Shabaab. sidaasi waxaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. dowladda Soomaaliya waxay u mahadcelisay dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo fahmay muhiimadda ah in hal meel looga soo wada jeesto Al-Shabaab oo dalka dhan laga saaro dadka iyo diintana ay duulaan ku yihiin. sidaasi ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi maanta uu ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. dagaalka oo saaka waa berigii ka bilowday deegaankaasi ayaa waxaa la sheegayaa inuu dhex maray ciidamada macawisleyda gobolka Hiiraan iyo militariga Soomaaliya oo isku dhinac ah iyo xubno iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. xogta laga helay dagaalka ayaa sheegaya in rag ka tirsan kooxda Shabaab oo ka soo gudbay jiinka wabiga iyo deegaanada dhacaduleedka Beledweyne laga warhelay sidaasna lagu wajahay dagaalka oo uu sidaa ku qarxay. Korneyl Khaliif Idriis oo ka warbixiyay dagaalka saaka waxa uu sheegay in Al-Shabaab lagu jabiyay dagaalka oo ka dhacay deegaanada Arey iyo Dhoqor oo qiyaastii 40 kiiloomitir u jira Beledweyne dhanka Halgan iyo Buulo Burde. dhanka kale sarkaal ka tirsan ciidanka Soomaaliya ayaa sheegay in la burburiyay doonyo ay wateen Al-Shabaab oo ay kaga soo gudbeen dhinaca jiinka wabiga xilli ay soo qaadayeen dagaal gaadma. Al-Shabaab ayaa waxa ay lumiyeen gacan ku haynta deegaano badan oo ay kaga sugnaayeen gobolka Hiiraan sida muuqata waxaana wali socda duulaano dhowr ah oo dhowr jiho lagaga qaaday iyagoo laga xoreynayo deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. weli waxaad naga daawanaysaan channelka galka wararka.
fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar barnaamijkan noo like diyaarad rakaab ah ayaa ku burburtay harada Victoria gaar ahaan gobolka Kere ee dalka Tanzania. taliyaha booliiska ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in diyaaraddu ay dhacday. wuxuu sheegay inay socdaan dadaalo loogu gurmanayo dadkii rakaabka ahaa ee halkaa ku waxyeeloobay. diyaaradda ayaa saaka ku burburtay magaalada Bukoba. kooxaha dabdamiska iyo booliiska ayaa gaaray goobta si ay uga qayb qaataan howlaha gurmadka. ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay diyaaradda, balse warbaahinta iyo wararka hordhaca waxay sheegayaan in 3 qof ay ku dhinteen, dadka inta kalena laga badbaadiyay. warkii aad kala socoteen channelka galka wararka daawadayaal waa naga intaas. inta aan ku kulmayno warkan la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas. badgeliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.